الحمد لله ودي قادشada ay khalad bahayd oo deyn riba inaad qaadato ma banaaneen asalku wada hada daruuro maadan sheeganin laakiin jahli baa sheegatay jahliga haduu jahli mu'tabar lagu cudur daari karayahay de ismiga iyo dambiga qaadashadu ka ridaya laakiin asal ahaan ma banaana mid labaad mar hadaad gasho heshiiska gashay laba mid baad noqon inaad diidi karto wax la fihi ka badan wad awoodo waajib ay kugu tahay inaad diida bixinteedana ma banaana haddii aadan awoodin oo mar hadaad gashay aad ku qasban tahay oodan awoodin ama dhib ka weyn kaaga imanayo de waa inaad iska bixisaa way ku banaanaan diin ahaan bixinteedu oo baab irtikaabi akhaf ad-dararayn waxa la yiraahdo bay noqon iyo baabul ikraah oo qasabaad ku tahay oo aadan khiyaar lahayn bixinteeda de haddii aad leedahay waan awoodi waayay diiwaan kula talin lahaa ka warta bal dadka muslimiinta inta dhex gasho oo bariila gurmada tiraahdo wari caawiyo iga bixiya dheh haday ku suuroobi weydo de isaga soo carar wadanka waraaqahood intaad u tuurto oo waxooda qashinka ugu darto dad iyo dalmiyo muslim baa tahay oo Soomaaliya iyo wadankii dadku waa degan yahay qof walbana wixii Ilaahay siiyo ku nool yahay risiq waa un la qabaayo adiga kontonka kuna karoon iska bixin la kumanaan ka xoolo badan oo wadankiina joogtaa jirtay gaajo u dhiman maysid oo Ilaahay wax ka khayr rabbu ku siinay de isaga soo carar tala hadii weydiisay ama muslimiinta la kaasho hadaan soo tagaynin ama isagaba soo cararo dad kaba soo tagto soo bixi karto waraaqahoodana aad u baturto di xageeba ka soo heli ka soo qaban laakiin mar walba qasab waxa kuwa la fihi lagu lahaa waa xoolada inaad iska bixiso xuquuqda bini'aadamka wabillahi tawfiiq